Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida qaybta lixaad ayaa maanta waxay xukun ku riday nin lagu helay inuu la shaqayn jiray ururka Al-Shabaab oo ku sugan deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed. Ninkan la sheegay in lagu helay la shaqaynta Al-Shabaab ayaa waxaa lagu magacaabaa Xasan Cali Gaas, waxaana xiraalinta maxkamadda ciidamada ay ku eedeeyeen inuu la shaqayn jiray xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugan tuulada Ceel Garas. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qaybta lixaad oo ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ayaa sheegay in Xasan Cali lagu qabtay isagoo watay 218 xabadood oo rasaasta qoriga AK-47 ah oo u waday tuulada Ceel Garas oo ay maamulaan Al-Shabaab, waxaana maxkamadda ay ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidan ah. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in xukunsane Xasan Cali Gaas uu furan yahay racfaan kuna eg yahay muddo 30 cisho ah. Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida qaybta lixaad ayaa horey waxay xukunno kala duwan ugu riday xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ka mid ah kuwa dowladda Soomaaliya kuwaas oo dilal geystay iyo falal kale. Audio Jungle.